ayo Soomaali wallayto waa la kala degdegay naagtani waa wallayto iyo maaqa waxay tahay eegi waxay ku tumanaysaa oo ku niikinaysaa calanka Kenya umada isu tumi ilaa Kenya afna male dad nasabkoodu meel ku wada aroorana maaha waa umad isu tumi afkoodu waa wax la isu keenay uma jirta maaha gebigoodaba Ingiriis baa sameeyay Kenyaatigan leedii sheegayo leey dawladda Kenya la leeyay waaba macmal ba dul Soomaali laga boobay oo Ingiriisku ka boobay iyo inuu Tanzania iyo Uganda ka soo boobay waa wax la isu keenay luqadoodu xitaa luqad jirta maaha luqadda Sawaaxiliga leeyada luqad jirta oo meel ku aroorta maaha oo wax Hindi baa ku jira Arabi baa ku jira Soomaali baa ku jira Ingiriis baa tafka waa luqad la isu keenay iyo ummad la isu keenay iyo dal waxa weeye dalal kale laga soo gooyay way isticmaalkii Ingiriiska ayaa waxaan sameeyay horta gebigiisa badal jira oo maxaba iyadoo ay sidaa tahay Soomaalidu waxay ka degan tahay afar gobol macnaha Kenya marka saddex meelood loo dhigo meel iyo badh Soomaali ba iska leh deegaan ahaan macnaha dhulka NFD la yiraahdo Kenya saddex meelood hadii loo dhigo meel iyo badh waa NFD waxa degan intaas oo milyan dad 8 milyan kor u dhaafayo Soomaaliya ayaa halka lagu daray waa deegaanada xoog la inaga haysto oo leeyahay Kenya ka mitiin iyadoo sidaa tahay naagta wallaytada cudurdaar baa loo sameeyay waxa la yiri waa gabadh Kenyaatiya oo xanaaqday wiilashii Soomaalida ahaa ee dhulka Kenya maanta la sheego saddex meelood meel iyo badh lahaa oo calanka Kenya ku istaagay sida naagtaas ugu niikinayso iyagu kuwa ma niikinayso waa laadeen xabsiga la dhigay markaas kaaga daran sujuugi kuwiisa Soomaali sujuug ku leeyahay ee bila aqliga meel bixin tagay khaladu kale array uu khaldame kibaandu ma haysane cadownimada iyo xaasidnimada iyo daalinimada dadka ku jirta waa dad adoonsiga qaayibay way adoonsiga qaayibeen nimanka halin baa ku jira nin Faarax Macalin Dawaare la yiraahdo oo laandheera ah oo Soomaalinimadu qanjaha joogto oo geesi ah ninkaasaan waxaan arkay anigu dadka halka jooga ee Soomaalida ah qabiilkay doonaan ba sheegteen reerkay doonaan ha ka soo jeedeen eegay wax Soomaali ah oo waxa weeye Kenya wax ku darsaday oo Faarax Macalin Dawaare ka geesisan oo ka laandheeraysan oo ka hadal cad anigu ma arag fariinteeda Faarax Macalin Dawaare la gaarsiyo Faarax Macalinow umada Soomaaliyeed waxay kugu taqaanaa nin geesi ah laandheera ah hadalkiisu cad yahay eegay Kenyaatiga iyo wallaytada iyo kuukuyada iyo ilmo fuufu gafuurka ku dhufta eegay deegaankiisa iyo dhulkiisa iyo dadkiisu waxay u gooyeenna waxa weeye Kenyaatiga kula xisaabtama Faarax Macalinow lama qabato adoo meesha maanta jooga in wiilal yareed oo Soomaaliya oo xanaaqay oo calanka Kenya waxa weeye laadayna la xiro naaga iyo niman ku niikiye oo fiidiyow laga duubayana in la yiraahdo waa dhalinyaro cadaysan meel walba mid kale waxaan arkay adoontu dhashay fuufuuda culishito meel ba ka qaynaya weewe Soomaali mushkulka hooga Soomaali adoontii oo qaylinaysa baan arkay iyo dad Soomaaliya eegi oo ka daba raxlaynaya wali reer koonfureedna u badnaadeen sax waayno hal la xiro khalad waay khalad ay u geesteen waay calanka ugu istaagayaan bay soo wada qorayeen kuwii sujuuga ahaayee bilaadnimada ahaana eegay ee adoonsiga qaayimayna waxay bay soo haystaan Kenyaati inay yihiin ha calanka lagu istaagay ariya kibaando ma hayste calanku ku istaagay waa la xiri halkaas ka soo leeyeen sidii lo haraadan baa kuriyo halka ka wada guuxay wada gafuur weyn bay waxa soo qorayeen Faarax Macalin Dawaare waxaan leeyahay Faaraxow Kenyaatigan wallaytadan iyo kuukaayadan isu cudur daaraysa dhalinyaradii Soomaaliyeedna ama hal la sima dadka fiidiyowgan Faarax Macalin Dawaare daawo waa naag wallayto iyo kuukuuyo iyo maaqa waxay tahay fiidiyow baa laga duubaya calankan ay ku iyadu waa ku niikinaysa waliba dhalinyarada Soomaalida kuma ma niikinayadu waa ku niikinaysa dadka sidaa yeelaya dhulka Kenya meeshay ka degan yihiin dhibic wajeer xitaa ma dhamo wajeer magaalada wajeer xitaa dhulka ay ku fadhido in la kama degana Kenya waana loo cudur daar xaq maaha
cadaaladna maaha wiilashii dhalinyarada ahaa ee qaangaarka aan ahayn carooday ee calanka laaday eegay oo aan gubin oo aan ku kaajin in xabsi la geliyo intaas oo waxa weeye kayaateen in fara laga qaado iyo walayta meesha qabiilaa lagu kala tagin kukuya waa qabiil Soomaali waa qabiil walayta waa qabiil juuju manyuujo waa qabiil in wafuufu waa qabiil reerna reer kama fiicna reerna reer kama laandheereysna anu ma garanayo meesha Soomaalida lagu bahdilay baladeegi meesha Soomaalida lagu bahdilay lagu baabiyo anu garan maayo cidda qura ee maanta waxa weeye fariinta aan gaarsiinayo ee aan la hadlayo ee aan rabo warkaygu inuu gaarana oo aan ogahay inuu wax iska celiyo nin aan khalad ka qaadan eegay edabdara lala soo dooran afka laad ka geliya baarlamaanka dhexdiisa hid iyo jeesta kala daala kuukuyada Faarax Macalin Dawaaro waxaan leeyahay maanta wiilka kibirka iyo dulmiga lagu xidhay waxay ka dhigan tahay adigoo baarlamaanka laga soo saaray oo lagu xidhay bay ka dhigan tahay dhulka ugu ballaaran eegay waxaan Kenya la yiraahdo caalamka laga sheego Kenya la yiraahdo dhulka ugu ballaaran baan leen dadka ugu tirada badan baan kuukuya ka tira badan xitaa iyo jin iyo jaankood iyo fuufuudood in la xidho xaq maaha dadkan sujuugaan waxaan leeyahay bil aqliga ah war Soomaali baatiin dhulkan aad degantiina idinka iska leh calankan baas ee shaydaanka ah ee waxa weeye Ingiriisku sameeyayna calankii rasmiga ah ma aha hadii la idin kula dhuuqa oo dadka wax iska dhaha calankayga waaye lugtan la gooyo waaye daasad la soo fadhidaan meesha wallahi billahi tallahi siyaad baranaad ka gardarnay ilaahay baan ku dhaartay Soomaali galbeed inaanay maanta waxaas ka dhici karin Addis Ababa Soomaali galbeed inta tagaan bay calanka Itoobiya gubaan haday doonaan sida loo eegi karo idinkana deegaankiina dhulkiina waa la idinku dhibaateynay maskaxdii baa la idinka meeray oo garashadii aqligii baa tagtay heer aad maanta waxa weeye ku kaayo uga soo horjeestaan Soomaali uga soo horjeestaan markii hore ba khayr badan bay dilaayeen qofkii halka yimaade dhulkiina yimaada xataa kibaanda muusita kibaanda bastabiya booliska loogu yar kayaatiga ugu dhawaad u dhibid saldhiga ugu horeeyad geysaan dadka Soomaalinimadii baa idinka meedhantay dhiigii baa la idinka meedhay garashadii baa la idinka meedhay aqligii baa la idinka meedhay gabigiinaba prom wash waa la idin dhaqay kayaati waa soo haysataan ba saafuufu u cunayseen oo ugaali u cunayseen ba adoon caadi noqoteen waxaad bay soo haysataan ba inaad adoonta ka mitiin war ma tiidina Soomaali baa tihiin dhaqan baad leedihiin diin baad leedihiin aqli iyo garash iyo damiir iyo jiritaan baad leedihiin adoonta kama mitiidin inta fuufu ka soo dhigay bikoriya ariya okay calanku ku istaagay wala diri idinka waa in Soomaalinimada dhabi leedku soo celiyaaba wallahi oo billahi oo tallahi dhabi in dabadan leedin qabto idinka si kale ku soo noqon misaanba waxa kaliya ee Soomaalinimada leedka dhaadhici kara waa dhingad iyo dhirbaaxa iyo laad baan ku idinka wax kale oo idin soo celinaya ma jirto Soomaali galbeed maanta haddii Itoobiyaanka aanu gacan u qaadno dalka aanu ka qabsano dadka degan Jigjiga iyo meesha la yiraahdo Harar iyo meesha la yiraahdo ilaa iyo goday war Soomaali galbeed isku soo duub dadka halka degan way og yihiin inay asal iyo fasal Soomaali yihiin laakiin dadkiina dhowrkan gobol ee waxa weeye NFD degan waxaad soo haysataan adoontiinba adoontii aad ka mid noqoteen si kale marka la idinku soo celin maayo deg iyo dhaban in la idin fujiyo qori baadkii la idin la dhaco Soomaalinimada ul baa la idinku soo celinaya idinka saasan media u eegay kaaga daran kuwan waxaaba ka daran ba NFD da waxa ka daran kuwa reer koonfureed maarteen Soomaalidii kala aba soo qoreysaba khalad waaye ha in calanku istaaga khalad waaye war calanka in lagu istaago iyo inaan lagu istaagin iyo khaladkeed iyo saxdeedaba waa wax dadkii wada sameeyeen maxaa takooray ka Soomaaliga takooray kaaga daran dadnimo xumada Soomaalida lagu og yahay NFD degan kuwa sujuuga liyaha dadnimo xumada lagu og yahay waxa kaaga daran kayaatigoona baqaylaya nima Soomaaliya weewe matunda samaniyaanka falaaka weewe murtun waxoodii qurunkoodii ila luqad ma aha wax la isu geeyay waxoodii meesha la soo istaageen meel walba ka hanjabaya waxaan waayay dadkan NFD degan oo waxa weey hadlaya Soomaalida dhulka NFD la yiraahdo ee Ingiriisku xoog laga qaaday dadkii deganaa oo hadlayaan waay
nin qura mooyaane kulligood biyaa ku wada shuban saasi u wada hurdaan fuufuu bay ka dhirgeen qofkii Soomaaliga xorayaan kibaandha ma haystaa wariya kibaandha ma qabtaa dambiiraate Soomaaliya ka timi Soomaaliya xoo haystaan bahor meel film horror laga shiday u haystaan say fuufuu u cunayeen oo ugaali u cunayeen ba aqligoodi ba ugaali noqday dhagax buu noqday gabigoodba ugaali maskax kuma jirto ugaali ba ku jirta qofkii walaalkooda Soomaaliga ba xorayaan kibaandha ma haystaa dambiiraate boolisku kugu yeeriyaa ninka faarax macallin mooyaane caqiibo kale oo ay leeyihiin ma jirto fariinta faarax macallin dawaaraha laga gaarsiyo xildhibaane laandeere wasiir wiilasha la xidhay ee kibirka lagu xidhay ee adoontu dhashay Kenyaatiga ay xidheen eegay si dhaqsan noogu soo daa hadii kala Soomaa Kenyaatiga walaytada iyo kukaayadana hal xidho hadal caataa walid maxaa laga dhibaatada kaliya nololaya Nairobi baan ogeey wixii ka dhacay wixii la leeyahay dhalinyaro Soomaaliyeed bahay waxa la dhibaataya waa Soomaali dalka qayb baanu ka diganahay ama naagahan iyo nimankan niikanaya hal xidho ama dhalinyarada loo soo daayo aanu cid kale oo la hadlayo haba yaraatay ma jirto faarax macallin dawaari ee gaarsiya muuqaalka fariinta gaarsiya dabta u saara cid ka dambaysa ma jirto cid ka horeysa ma jirto waa ninka iyo bas haday naflayiin maanta ay muuqan lahayd meel walba ka hadlahay macal siyaasigoodu naf male meel walba Kenyaati baa nooga hajabaya calanka Soomaaliya ku sheegtay Soomaali soo dalka ma deganaa war wajeer yaale war gaarisa yaale war mandheera yaale war dhulka yaa iskale soo anagu ma lihin soo dhulka ugu weyn ma deganin soo dhaqaalaha ugu badan ma bixino war Nairobi yaa leedka u shido damiya inta hadii lagu ixtiraam waayo adoon baa tahay war barnaamijkaasi shargaraya khayr iyo baraka dirjanayo salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh